ugu dambayn laba tuuga ayaa u soo dhacay qasri waxaana u suura gashay inay furaan qasnadii iyagoo aan jabin lacagtii ayay miiska soo saareen dabadeedna tuuggii weynaa ayaa la soo baxay turub waxauna u qaybiyey 3 meel kadib 3 koob ayuu qamro ku kala shubay wuxuuna amray tuuggii tababarka u socday u daar muusikada codka kan ugu dheer fariiso aan ciyaarne tuuggii yaraa ayaa la qabsaday diidmo dheer kadib markiiba waxaa yimid ninkii qasriga lahaa oo maqlay dhawaqa muusikada isagoo gacanta ku sita baskoolad waan idin dilayaa labadiina tuugada ayuu si cod dheer u yiri tuuggii weynaa kama naxin hadalkii waxauna ka dalbaday saaxiibkii inuu ciyaarta sii wado ninkii qasriga lahaa ayaa wacay booliska si degdeg ahna ku yimaadeen labadan tuugada waxaan ku qabtay iyagoo xadaya qasnadayda tuuggii weynaa ayaa mucaaraday hadalkii askarigiina ku yidhi ninkan waa beenlow isaga ayaa inoo yeeray si aan u ciyaarno khamaar markii uu khasaaray hantidii waxa uu la soo baxay baaskooladii handada ahaan ima aad lacagtayda ii celisaan ama inaan booliska idinku yeero kadibna aan idinku eedayo tuuganimo askarigii ayaa eegay koobkii iyo turibkii oo 3 loo qaybiyey iyo lacagtii oo saarnayd miis dushii iyo muusikadii oo wareegaysa oo wax walba caadi yihiin wuxuu rumaystay sheegashada labada tuug kalena soo baxeen qasriga lacagtii iyagoo boolisku ilaalinayo ninkii hantida lahaana xabsiga ayaa la dhigay si loo baaro inta badan dambiye ayay galaan booliska ayaana ammaankooda sugaya iyaga alla maxaanin madluuma uu dhex fadhiyaa qudcurka xabsiyada waa inoo mar kale